watahay dawadayaal qodobkiinan ayaa waxaynu ku eegi doonaa qaar ka tirsan jaaliyadda dalka Norway ku dhaqan ee Soomaaliyeed ayaa waxay isu diyaarinayaan sidii gurmad ay uga geysan lahaayeen abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ee dad badan ay ku xoolo beeleen. Hadaba waxaa khadka inoogu jira gudoomiyaha ururka Taakulo mudane Xasan Bile. Xasan ayaa waxaan weydiin doonaa bal waxa ay kaga qayb qaadanayaan iyo diyaar garowga ay wadaan qaabka uu yahay. watahay Xasan, haddii aad maqlayso ku soo dhawo barnaamijka waxa lagu maqaalaa inaad ku jirtaan abaabul aad kaga qayb qaadanaysaan taakuleynta loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen. haddii bal aad noo soo koobto waxa aad doonaysaan inaad qabataan iyo sida aad uga qayb qaadan kartaan ma noo soo koobi kartaa adoo mahadsan. Nursam walaal waad mahadsantihiin dhammaan. anagu ka taakulo ahaan waxaan sameynay abaabul la xiriira in gurmad loo sameeyo dadka walaalaha ee abaaruhu ay ku dhufteen ee Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. gurmadka aynu sameynay wuxuu ku koobnaa oo keli ah wacyigelin iyo wargelin inaanu si degdeg ah gurmadkan u bilaabayno. ahmiyadda iyo muhiimadda aynu ka leenahayna waxa weeye in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway ay gacan gargaar iyo gurmadba ka geystaan sidii ay walaalaha Soomaaliyeed ee abaartu ku habsatay ee Geeska Afrika ay gurmad u gaarsiin lahaayeen. marka waqti xadirkan ma aanan sameynin wax toos ah oo la xiriira inaan toos gurmad u geyno, laakiin waxaan abaabulnay oo qorshaysan in aan gurmad dhaqaale ka aruurino dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Norway. marka waxaa jira meelo gaar ah oo qorshaysan meelaha abaaraha ay ka jiraan oo aad la xiriireen idina qorshaysan inaad gacan ka geystaan dhibaatada ka jirta mise hadda un baad leedihiin meelaha ugu daran un aad xoogga saarteen? walaal sida aad la socoto Geeska Afrika waxaa saameyn ku yeeshay abaartan muddo dheer adigu 10 sano ugu dambeysay. haddana waxaa caqabad ahaa markay meeri abaar ka dhacdo oo caqabadu ay aad u xooganaato waxaa dhacda inay deegaanadu ay kala duwanaadaan oo deegaanba deegaanka uu ka darnaado maalinba maalinta ka dambeyso. sidaa daraaddeed Taakulo Social Development oo kaashanayso guddiga gurmadka abaaraha ee magaalada Tambergen iyo nawaaxigeeda falanqayn iyo qiimeyn aan sameynay kadib waxa aynu go'aan ku gaarnay inaynu gurmad aruurino muddo 15 beri ah. wixii ka dambeeyana aan go'aan ka gaarno deegaanka ugu caqabada badan oo ay abaartu aadka u saameysay aan siino muhiimadda koowaad ee gurmadka. muhiimadda labaadna aynu siino deegaanka labaad ee isagana aan u aragno inuu caqabada abaartu ay aad u saameysay. sidaa daraaddeed Taakulo Social Development iyo sidoo kale guddiga gurmadka abaaraha ee gobolkan galbeedka gaar ahaan Bergen iyo nawaaxigeeda waxaanu ma aanan xariiqin deegaan gaar ah, balse waxa aynu xariiqnay in goobaha ugu caqabada badan ee abaartu ay saameysay inaan haddii alla idmo gurmadka ummadda Soomaaliyeed ee dalka Norway ku nool aynu ka qaadayno aynu gaarsiino haddii alla idmo. waa gartay Xasan Bile, dabcan waxaa iyaguna jira dad badan oo muxsiniin ah oo laga yaabo inay siyaabo kala duwan ay abaabulo u wadaan ka jaaliyad ahaan Norway ma jirtaa xiriir idinka dhexeeya oo aad la xiriirdhay gobolada kale? dabcan hadda Bergen baad ku sugan tahay, hawshana Bergen baad ka bilowdeen, ururkana beeskiisu waa Bergen, laakiin jaaliyadda Norway degan aad u ballaaran tahay. ma jirtaa xiriir aad la samaysan gobolada kale iyo magaalooyin kale waaweyn si ay u noqoto gacan buuxda gabcaha la isku wada qabsado oo dadka loo gaarsiiyo taakulo xoogan? aad baad u mahadsantahay walaal. xaqiiqatan waynu sameynay xiriiro la xiriira dadka Soomaaliyeed ee magaalooyinka kala duwan degan, walow aanan weli toos wajihin inaan xiriir la sameyno ururada iyo hay'adaha gaarka ah ee ka jira dalkan ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaaliya. balse qorshaha inoo degan ayaa wuxuu yahay inaynu xiriir la sameyno sida ugu dhaqsiyaha badan si gurmadka ka imaanaya dalka Norway loo mideeyo isla mar ahaantaana ay u noqoto jawaab habboon abaarta halka ka jirto ay ugu noqoto haddii alla idmo. waxaa inoo qorshaysan inaynu xiriir la sameyno ururada ka jira magaalada Oslo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka si aan u mideyno gurmadka abaaraha iyo sidoo kale gurmad kasta oo la xiriira in lagu gurmado dadka Soomaaliyeed ee caqabaduhu ay sida dabiiciga u saameeyaan sida abaaraha iyo dagaalada iyo qaraxyada iyo waxyaalaha halmaara. marka qorshaha waa miisku saaran yahay. xubnaha ugu muhiimsan ee galbeedka Norway oo arrintan qaabilsan waynu isku soo qaadnay. falgelintiisina waa hawl under process oo hadda socota weeye. waa gartay sida in la wada soconno jaaliyadda Norway degan ee Soomaalida marka ay soo kordhaan dhibaatooyinka sidan oo kale abaaraha iyo daadadka iyo
waxyaabaha kaleba waxay ahaan jirtay jaaliyadaha ugu xooga badan ee sida muuqata uga qayb qaata hadda waxaad moodaa inaysan sanadkan aada ugu baraarugsanayn maxaa sabab ah waad u malaynaysaa arrimaha ugu xooga badan ee saameynta yeeshay waxay tahay warbixinaadka awal marka aynu helno waxay ahaydeen warbixino aynu isla markaa jawaabo ka bixino sanadkan waxaan u sababeyn karnaa laba qodob qodobka koowaad oo ah in abaabulada iyo caqabadaha ka jira soomaaliya dhanka abaaraha aysan aad warbixinaad toos aanan u helin dhanka mediaga gaar ahaan tusaale ahaan anagu hadda jaaliyad ahaan halkan gobolkan galbeedka muddo dhowr usbuuc ka hor ayaan isku soo qaadnay caqabadihii aan la kulanay waxaa kamid ahaa warbixin la-aan meel lagu kalsoonaado oo xog buuxda laga hela ma aysan jirin mediada ama warbaahinta soomaalidu inta badan warbixinaad guud waa ay sheegayeen laakiin weli ma aanan haynin warbixin la xiriirta xaqiiqada marka dadka norway ku nool ee soomaalida ah waxay ka mid noqdeen dadka galbeedka oo inta badan halka xaqiiqada camal waxaa dabcan jirtay oo toos loo soo gudbinayay dhibaatooyinka gobolada ka jira xoolihii oo madhanaya dadkiiyo haraad iyo baahi iyaguna la tabcaana marka warbixinta la sugayey yaa laga sugayey baad malaynaysaa soos lagu kalsoonaado oo warbixinaad laga helay inta badan ma aysan jirin deegaan walba dad baa waxay soo gelinayaan warbixinaad la xiriira abaaraha iyo caqabadaha iyaga oo social mediaga la wadaagayay laakiin xaqiiqatan sooska saxda ah informationka saxda ah ma aysan ahayn hay-ada madax bannaan oo warbaahineed oo gudbinaya ma aysan jirin waxaan u baahnayn marka in anagu inaan sameyno shaksi ahaan cilmi baaris la xiriirta xaqiiqada rasmiga ah ee abaaraha iyo sidoo kale saameynta ay leeyihiin marka waa arrin waqti qaadanaysa una baahan in la sameeyo qiimeyn xoogan inta aanan ficil la sameynin inagu marka waxaanu sameynay qiimeyn la xiriirta abaaraha iyo saameynta ay leeyihiin ugu dambeynna waxaan ku dhawaaqnay gurmad degdeg ah iyo in la gaarsiiyo dadkaasi gurmad go-aan kastoo la qaadanayana waxaa loo baahan yahay in la helo xog rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo oo lagu go-aan qaadan karo dhinaandhininteedana waxay u baahan tahay maadaama dalka aysan ka jirin dowlad leh haykal system oo la xiriirta dhanka warbaahinta oo looga kalsoonaan karo warbixinaadka ay bixinayaan ka urur ahaan ka taakul ahaan annagu waxaan ku qasbannahay inaan groundka ka helno warbixin rasmi ah oo aan xiriir la sameyno deegaanada kala duwan gobolada kala duwan haddana dadka aan la hadlayna ay ahaadaan dad sooska iyo warbixinta aan ka helayna ay sax tahay si dadka waxa aynu weydiinayno iyo gargaarkii gurmadka aan bixinayno u noqdaan kuwa baysle waxaa taasii dheer waa in la helo sidoo kale caqabaduhu say u kala badan yihiin ay u kala duwan yihiin oo u kala dhibaato badan yihiin ururadu xaqiiqatan ma ahan inay ka gaabiyeen shaqadii loogu talagalay inay qabtaan oo la halmaalay caqabadaha iyo wajahidda sidii looga jawaabi lahaa baahida dalka ka jirta balse sidaan hore u sheegayba waxaan u sababeynaynaa warbixin la-aan jirtay xaqiiq la-aan jirtay iyo sidoo kale in laga go-aan gaaro goobaha ugu dhibaatada badan uguna caqabada badan si loo gaarsiiyo gurmadka ummadda soomaaliyeed ee dalkan ku nool laga qaadayo taas baan ku sababeynaa xasano waxaa kaloo jirtay guddi magacaaban hore loo magacaabay abaaraha iyo dhibaatooyinka markay yimaadaan inta badan hormuud u ahaan jiray ururkiinu ma la xidhiidhay guddidaas mase idin qorshaysan tahay inaad hadda la xidhiidhaan annagu ururka qayb baynu ka nahay gaar ahaan dhanka galbeedka waxaan magaciisa layidhahdaa ururka gurmadka abaaraha iyo masiibooyinka magaalada bergen babiso ah waa ururka anigu aan qayb ka ahay sidoo kale dhanka iyaga waynu bilownay reer cusub xiriir iyo calaaqad baa inoo socda waana rajaynayaa ayaamaha soo socda haddii alla idmo in aad aragtaan dhaqdhaqaaq guud oo ka socda guud ahaan dalka norway marka processka soo socda waa hawl aynu bilownay insha allahu tacaala ugu dambeyn muxuu yahay baaqaaga ugu dambeeye ee bulshada soomaaliyeed ee norway ku dhaqan aad u dirayso hawadu marinayso bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka norway laba qodob baan u baaqiyaa qodobka koowaad waxaan u baaqiyaa midnimo wada shaqayn iyo isgarab istaagid marka ay jirto caqabado iyo abaaro dalkii iyo sidoo kale gudaha dalkan aynu joogno laysu gurmado la isgarab istaago waa qodobka koowaad aan ugu baaqiyo qodobka labaad aan ku baaqaya waxay tahay arrimaha abaaruhu waa arrimo la xiriira isbedelka cimilada ismar ahaantaan u baahan isgarab istaag iyo iskaashi xoog badan oo loo baahan yahay in qaabkii hore loo fikiri jira qaab ka duwan loo fikiro taasoo micnaheedu yahay dadku waxa ay 80% ku nool yihiin geeska afrika noloshoodu ku tiirsan tahay xayawaanka gaar ahaan xoolaha nool oo loo yaqaano ariga iyo geela iyo xoolaha la halmaalo xoolahan dhaqana ah abaaruhu marka ay wajahaan dadka qaybaha koowaad ama saameynta koowaad waxay ku yeelanayaan xoolaha
xooluhu hadday la'daanna boqolkiiba 80 ummadda Soomaaliyeed waxay kusoo dhacaysaa meel cidla ah haddii aanan marka 20-ka soo hadhay oo dadka magaalooyinka ku nool aanan u fikirin qaab ka duwan qaabkii hore oo ah in dalku uu maro isbedel uu galo waxay noqonaysaa in caqabad ay timaado nololeed oo aad u dhibaato badan waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed ma aha reer Norway oo keli ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha joogta iyo kuwa dalka jooga iyo ganacsatada iyo nidaamyada dawliga ee lokaalada iyo kuwa federaalka dalka ka jira in loo diyaar garoobo caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay cimilada iyo isbedelkeeduba ay keenayso loona diyaar garoobo in dadka miyiga ku nool ee xoolo dhaqatada ah loo diyaariyo nolol ka duwan nolosha ay ku nool yihiin iyada oo la marayo wada shaqayn kalsooni iyo iskaashi dal iyo dibad ganacsade iyo maxaa ku raadaya shaqaale inta ka dhaxaysa insha Allah taala labada qodob baan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay xasan bile waxaan rajayn doonaa in baaqaaga uu gaari doono ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Norway iyo guud ahaanba adinka madaba mahadsantihiin salaam calaykum